بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu cirib tiraayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro malaha dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray gaar ahaan deegaanada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle dadka Soomaaliyeed argagixisadu dagaal kulama jirto dowlad danna kama laha waxaa mabda u ah cabsi gelinta bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabateynta abriyada gargaarka u baahan waxaa la yiri meyd maxaa u dambeeyay kaas la sii halkani waa dunida media daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan dunida media haddii aad ku cusub tahay janaalka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto sidoo kale gambaleelka aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walbo aan halkan kusoo gudbino mahadsanid waxaan barnaamijkeena maanta ku falanqeyn doonaa amaan kaga hadli doonaa xabad joojintii u dhaxeysay Itoobiya iyo kooxda TPLF oo burburtay shirwadareedka golaha wasiirada oo maanta la soo gabagabeynayo dowladda Qatar oo ballan qaaday inay gargaar caafimaad u fidinayso dhaawacyadii weerarkii Hotel Xayaat iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga oo ku baaqay dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab dowladda federaalka Soomaaliya oo diyaarada gargaar sida geysay deegaana ka tirsan gobolka Hiiraan qodobadaas ayaan kaga hadli doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gudoomiyay shir aan caadi ahayn oo ay yeesheen guddiga amniga qaranka ayaa shacabka Soomaaliyeed la wadaagay fariin ku saabsan xaaladda amniga ee dalka iyo qorshayaasha dowladda ee dabargoynta ururka Al-Shabaab madaxweynaha ayaa tilmaamay diyaar garowga uu bilaabay tan iyo markuu xilka yimid kaasi oo ku aadan xoreynta deegaanada ay ku haystaan Al-Shabaab iyo in dagaal joogto ah lagu qaado cadowga duulaanka ku ah nabadeena dowladnimadeena iyo waliba madax banaanideena ayuu yiri waxaa naga go'an in aan argagixisada dhibaatada ku ah shacabkeena awood tirno ilaa laga xoreynayo dhammaan deegaanada ay xooga ku haystaan qorshayaasha waa mid fulintiisa iyo diyaar garowgiisa ay socdaan waa qorshaha mudnaanta koowaad u leh dowladeena ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hadafka ugu weyn Al-Shabaab ay ka leeyihiin weerarada gaadmada ah ee ay ku beegsanayaan goobaha ay shacabku isugu yimaadaan ay tahay in la niyad jabiyo dadka Soomaaliyeed dowladana laga mashquuliyo qorshaha xoreynta dalka shacabka Soomaaliyeed waan ognahay inaan ku daasheen tacsida iyo baroor deeqda joogtada ah waan ogahay in qaraxa walba argagixisada soo maleegaan aad ku weedaan dad agtiina qaali ku ah sidaas awgeed waxaan idinka codsanayaa inaad u diyaar garowdaan dagaal aan waxba la hareyn oo la galayo arxan laabayaasha lidiga ku ah nabadeena iyo dowladnimadeena ayuu yiri shirka guddiga amniga qaranka ayaa kasoo qayb galay wasiirada amniga arrimaha gudaha iyo cadaaladda taliyayaasha booliska iyo nabad sugidda la taliyaha madaxweynaha ee amniga qaranka halka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kaga qayb galeen dhanka qadka waxaa lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan weerarkii Hotel Xayaat u diyaar garowga shirkadda golaha amniga qaranka iyo qorshaha xasilinta dalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay tan iyo doorashadiisii qadka taleefanka kula hadlay Imaaraadka dalka Qatar Tamiim bin Xamaad madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in hogaamiyaha Qatar uu ugu tacsiyay madaxweynaha dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotel Xayaat dowladda Qatar ayaa madaxweynaha Soomaaliya u ballan qaaday inay gargaar caafimaad u fidin doonto dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay amiirka Qatar sida uu u garab taagan yahay Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maalin ka hor sheegay inay dowladdu dalka dibadiisa u qaadayso dhaawacyada xaaladooda ay culus tahay lagu guda jiro gurmadka degdega ah ee deeqda lagu gaarsiinayo dadka abaartu saameysay isla markaana la fulinayo amarkii ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa magaalada Muqdisho laga diray 4 diyaaradood oo sidii shixnad gargaar cunto kuwaasi oo loo diray magaalooyinka Beledweyne iyo Buloburte ee gobolka Hiiraan
waxaa hawsha gargaarka fuliyey gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka Maxamuud Macalin Cabdulaahi iyadoo ay gacan ku siinayeen mas-uuliyiinta xafiiska ra'iisul wasaaraha uu horkacayay xoghayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Abuukar Zubayr iyo maareeyaha xubinta howlgalka gurmadka degdega ee xafiiska. Deegaanada gargaarka la geynayo ayaa waxaa dhowaan booqasho ku tegay madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen waxaana ku sugan dad ay saameysay abaarta. War-saxaafadeed ka soo baxay kooxda Tigray ayaa lagu sheegay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Imaaraadka ay ku jiraan maleeshiyado fano ay ku soo qaadeen weeraro saf ballaaran ah oo koonfurta galbeedka Tigrayga. Kooxda TPLF waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda ay weerar ku ekeeyeen magaalada Almata iyo nawaaxigeeda sidoo kalena uu dagaalka ka socdo dhinaca galbeed ee gobolka Tigrayga. Dagaalkan ayaa u muuqda mid sii weynaanaya dhinacyada ugu diyaar garoobeen inkastoo la waday waan nabadeed oo ay garwadeena ka yihiin Midowga Afrika. TPLF ayaa ku doodeysa in ciidamada dowladda ka baxaan gobolka Walqayid balse taasi ma muuqato iyadoo oo weli dowladda Itoobiya ka hadlin warkan ka soo baxay TPLF. Waxaa maanta lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo xiro shir wadareedka golaha wasiirada kaas oo shalay ugu furmay magaalada Muqdisho. Sidoo ra'iisul wasaaraha sheegay kulanka ayaa lagu lafagurayaa howlaha mudnaanta u leh xukuumadda danqaran iyo habka loo xoojin karo wada shaqeynta wasaaradda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda. Mas-uuliyiinta shirka ka qaybgalaysay qaarkood ayaa maanta hadal ka jeedin doona shirka iyagoo soo bandhigi doona qorshahooda shaqo ee sanadaha soo socda iyo waxa ka qabashada arrimaha abaaraha iyo weliba amniga dalka. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabduqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Genaraal Odawaye Yuusuf Raage ayaa dhiirigelin u sameeyay ciidanka dib u xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta ayaa ciidamada dib u xoreynta ugu mahadceliyay sida ay ula dagaalameen ururka Al-Shabaab iyo deegaanadii ay kala wareegeen. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Genaraal Odawaye Yuusuf Raage ayaa ciidamada ugu baaqay inay ka fikiraan in mar kale aysan ku soo laaban Al-Shabaab deegaanadii laga saaray gobolka Hiiraan. Wuxuu sheegay in sidoo kale lagama maarmaan tahay in laga saaro deegaanada kale oo ay weli gacanta ku hayaan si looga dulqaado dadka shacabka oo ay dhibaatada ku hayaan. Wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga ayaa safarkooda gobolka Hiiraan waxa uu salka ku hayaa abaabulka dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab kaasoo ay ku dhawaaqeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka. Waa tahay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo afmarayaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen Dunida Media. Haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto gambaleelka aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo halkan soo gelino. Like garee muuqaalka una sii share garee saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba guud ahaan caalamka. Mahadsanid.